hooyadii labada nin dhashay ayaa mar qura soo booday waxa ayna tiri waa run oo ma qasaarin oo 2 nin oo 20 jir ah ayaan leeyahay ayay ku tiri. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhammaan daawadayaasheena sharafta leh ee ku xiran channelkeena. Waxaan rabaa maanta inaan idin la wadaago sheeko xikmad leh oo gaaban taasoo ku saabsan hooyo la soo furay. maalin maalmaha ka mid ah ayaa hooyo iyo 2 wiil ay dhashay dukaan wax ka soo iibsanayay. waxa ayna hooyadu la kulantay nin ay horay isku garanayeen oo isna dukaanka wax ka soo iibsanayay. laakiin ninka waxa uu ogaa kaliya in la guursaday mana uusan ogeyn in ay caruur dhashay. way isa salaameen ninkii waxa ayna u sheegtay in ay madax banaan tahay. markaasuu yiri oo miyaa lagu furay. markaas ayay tiri haa balse kuma aanan khasaarin guurkaygii oo 2 nin baan leeyahay. haddii uu i furayna calafkaana kala geeyay 2 nin ayaa ay anfacaya kuwaas ayaa wax i taraya. ninkii waa uu yaabay oo waxa uu yiri maxaad sheegaysaa war miyaad waalatay maxaad ku hadlaysaa ayuu ku yiri. hooyada 2 nin dhashay ayaa mar labaad soo booday waxa ayna tiri waa run oo ma qasaarin oo 2 nin oo 20 jir ah ayaan leeyahay ayay ku tiri. ninkii waa uu yaabay waxa uuna ku yiri iska aamus wax fiican kuma hadlaysidee wallaahi hadal fiican ayaan ku hadlayaa ayay tiri ee ku farax hadalka aan ku sheegay. maxaan ku farxaa ayuu yiri waaba yaabanahay war farxad leh miyaad ii sheegtay ayuu ku yiri hadal aan ka naxay oo aan ka yaabo oo kaliya ayaadba ii sheegtay. ninkii oo yaaban ayaa waxaa soo kala dhaxgalay ninkii dukaanlaha ahaa oo yiri maxaad isku haysatiin. ninkii yaabanaa ee naxsanaa ayaa soo booday waxa uu yiri gabadhan horay ayaan isku garanaynay haddana waan isa salaanay. maalin dhaxdaas ayaan maqlay in ay guursatay waxa ayna ii sheegtay in la soo furay balse ay leedahay 2 nin oo 20 jir ah. ninkii dukaanka lahaa ayaa soo booday oo yiri waxa ay ka wadaa 2 wiil ayaan dhalay oo guurkii kuma qasaarin. ninkii oo yaaban baa yiri haa may sidaa farwaaweyn wax iigu sheegto. yacni ninkan ee gabadha isgaranayeen wuxuu u fahmay 2 nin ayaa leeyahay yacni 2 nin ay qabto ayuu u fahmay laakiin ayada waxay ka waday 2 cunug ayaan dhalay. ninkii waa uu la yaabay balse markii dambe ninkii dukaanlaha ah ayaa fahansiiyay. ninna si u yiri ninna si u qaaday ayay Soomaali hore u tiri. markii dambe waxa isfahansiiyay ninkii dukaanlaha ahaa. sheekada haddii aad halkan soo gaartay waxa aad ka fahantay qaybta hoose commenti ku qor kuna saliya xabiibkeena Muhammad Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa salaamu alaykum.